habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo joogtaan u diyaargarooba wararkeena caawa Jimco Sabti soo galayso waana 19 bisha February sanadka 2021 wararkeena aad ka daawanaysan janaaladena calanka news ee sirta wararkana caawana qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ee soo qaadan doona waa sidee caawa xaaladda magaalada Muqdisho kadib dagaaladii maanta ka dhacay magaalada ilaa xalay jawiga caawa sidoo yahay ciidamada dawladda oo guud ahaanba baneeyay wadooyinka iyo waliba jidgoyaasha ay dhigteen gaadiidka dagaalka laga qaaday talada daljidka Daason ee ciidamada oo lagu celiyay xiriir ay ka soo baxeen wararkii ugu dambeeyay Muqdisho ayaan soo qaadan doonaa maxaa laga diiwaan geliyay maanta dagaaladii Muqdisho ka dhacay weerarkii ciidanka dawladda ay ku qaadeen dadka shacabka banaabaha dhigayay iyo musharaxiinta rikoorada xun ee u diiwaanka loo geliyay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo ayaan eegaynaa xasan sheekh shariif sheekh axmedna waxay ka guureen hotelkii Maida oo hotelkii ay deganaayeen una dhawaa madaxtooyada Soomaaliya sababta ay ugu guureen isbedelka ay xeeladaha markan ay sameeyaan musharaxiinta mucaaradka ayaan soo qaadan doonaa ra'iisul wasaare Robles la yaab leh ayuu kaga hadlay weerarkii lagu qaaday musharaxiinta banaanbaxyada la joojiyay Robles waa uu hanjabay mucaaradka hanjabaad culus ayuu u diray asagoo sheegay inaysan dawladiisu ama xukuumaddiisu aqbali doonin mudaharaadyo looga soo horjeedo dawladdu in Muqdisho lagu qabto imaamka beelaha madulood oo xog la yaab leh bixiyay fariinahan jabaadana hawada u mariyay Farmaajo beesha madulood hadda u muuqanaysa mid la safanaysa mucaaradka iyo abaabulka beelaha madulood ay ka wadaan wuxuu nabadoon xaad ka yiri weerarkii lagu qaaday dadka shacabka banaanbaxa dhigayay iyo hadalahan jabaad oo xaad u jeediyay dhammaanba beelaha madulood fariimahan jabaad ay jeedinayaan ayaan soo qaadan doonaa qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena caawa qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe inoo dhe gambalkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka wararka iyo xogaha gaarka ee halkan ku baahino markale saaxiibayaal fiid wanaagsan soo dhawaada waxaan ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay caawa magaalada Muqdisho jawiga caasimadu sida uu yahay halka la kala joogo iyo waliba sidoo kale ciidamada dawladda oo lagu celiyay xiriyaha militariga ay ka soo baxeen sida wararku ay sheegayaan waxay baneeyeen dhammaanba wadooyinka maanta ciidamadu gaadiidka dagaalka la dhigay iyo sidoo kale talada daljirka Daason oo ciidamadu ay joogeen wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayeen ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan kuwa gorgor ay Turkidu ay tababaraan ciidamada Haramcad dib loogu celiyay xiriyihii xalay laga soo bixiyay ku yaala duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan talada daljirka Daason oo ay yeeleen beebayaal iyo waliba gaadiidka gaashaaman ee taangiga loo yaqaano ayaa guud ahaanba galabta laga qaaday halkaasi dib ayaana loo fasaxay dhaqdhaqaaqa talada daljirka Daason ee dhaqdhaqaaqa dadka shacabka ayaa caawa caadi ka magaalada Muqdisho marka loo eego dawladda Soomaaliya dhammaanba waxay xareysay ciidamadii magaalada ku soo fasaxday kuwaas oo maanta isirsaag bareera ku sameeyay banaanbaxa midowga musharaxiinta rasaas noolna u adeegsaday intuu banaanbaxa soconayay jawiga caawa caasimada magaalada Muqdisho ayaa u muuqanaya mid aad u xasiloon oo degan marka loo eego waxaase weli aan bilaaban dhaqdhaqaaqa dhanka ganacsiga dadka Muqdisho ayaa cabsi badan muujinaya oo laga baqayo in mucaaradku abaabula ay sameeyaan haddaba dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay dibadbaxyada iyo halkii wax marayaan ayaan eegaynaa waxaa ciidamada dawladdu maanta markay rasaas nool u adeegsadeen banaanbaxyaal ay horkacayaan musharaxiinta mucaaradka taasoo ay ka dhalatay shaqaaqooyin aad u culus musharaxiinta banaanbaxa hogaaminaya waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabshakuur wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre xildhibaano oo ku jiro Maha Salaad Oduwa iyo xubno ka mid ah dawladda federaalka xildhibaan Maha Salaad oo ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay banaanbaxa lagu furay rasaasta ayaa sheegay in talaabadaas ay tahay mid ay lagu ciqaabi doono amarka cid bixisay iyo ciidamada falkaasi sameeyay sidoo kale waxa uu sheegay in weerarkii xalay ciidamada gorgor ay ku qaadeen hotelka uu deganaa madaxweynayaashii hore dalka rasaasta lagu furay banaanbaxyada ay marqaati ka yihiin ama marqaati ay ka noqon karaan in madaxweynaha Soomaaliya uu yahay siyaad baraha labaad ee dalkan doonaya in awood militari uu ku maquuniyo xalay ilaa isaaki waxa dhacay waxa marqaati ka naqan kara dadka rayidka ama dadka shacabka ee reer Muqdisho Farmaajo waa siyaad baraha labaad inkaar qabaha afka ayaan ka inkaarayna waan la dagaalamayna ayuu yiri Maha Salaad qoraalkan ku daabacay boggiisa Twitter-ka dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabshakuur oo qayb ka midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa isna dhacdadaas si la yaab leh kaga hadlay wuxuuna sheegay in ay arintani ay noqon karto mid crisis ah sidoo kale uu sheegay in maxkamad ay la tiigsan doonaan waxa uu sheegay in askartii rasaasisay
asaga iyo waliba dhammaan musharaxiinta iyo dibadbaxyada ay mid u yaqaanaan ayna bartilmaameysan doonaan sida uu sheegay sharciina ay la tiigsan doonaan. xaaladda muqdisho ayaa maanta kacsanad hase yeeshee caawa waa ay deganta waxaana wadooyinka muqdisho weli lagu arkaya ciidamo teelteel ah laakiin gaadiidkii iyo ciidamadii faraha badnaa ayaa caasimada caawa laga xareeyay. waxaa keliya caasimada ku arkaysaa waxa waaye in ay joogaan xubno badan oo ka mid ah ciidamada ammaanka oo si teelteela. haddaba ra-iisul wasaaraha Soomaaliya arrintan ka hadlay ayaa idiin soo gudbin doona inta ra-iisul wasaaraha eegaysa Xasan Sheekh iyo waliba Shariif Sheekh Axmed ayaa ina ka guuriyay hotelkii ay deganaayeen una dhawaad daljirka Daahsoon iyo waliba madaxtooyada hotelkaas abaabul xooggan ay ka wadeen. waxaana soo baxayay in markii hore la go'doomiyo la hareereeyay taasoo keentay markii dambe ay ka guuraan madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa gordhabeed iskaga baxay ama ka guuriyay hotelkii Maida X naasaha plot laba una dhawaad taalada daljirka Daahsoon sida aynu ku ogaanay xogo gaaraan helay. Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan ayaa dib ugu laabtay xarumahoodii ay ka deganaayeen magaalada Muqdisho ayagoo halkaasina kasii wadaya ayagoo halkaasina ka galbiyeen ciidamada ilaalada gaarku ah iyo waliba ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo horkacay General Odwa taliyaha militariga Soomaaliya oo qaab qabiil la sheegay inuu ugu tagay Shariif Sheekh Axmed kadib markii hortaag ciidamadooda lagu sameeyay banaanbixi ay abaabulayeen sida janaalkiina uu sheegay ila xogagaal ah oo ku dhudhow labada madaxweyne. waxaa gelinkii dambe ee maanta ay ka qayb gali lahaayeen kulan isku imaan lahayn midowga musharaxiinta oo saaki qaarkood rasaas nool loo adeegsaday. waxaana la sheegay in kulankaasi uu baaqday kadib markii madaxda qaarkood ay dhafreen oo xalay dhan ay soo jeedeen oo aysan seexan taasoo keentay in gelinkii dambe ay hurdaan laakiin caawa saqda dhexe kulan degdeg ay yeelan doonaan. arrintan ayaa imaanaysa xilli weerar lagu qaaday ciidamada gorgor ay bartilmaameysadeen hotelka ay deganaayeen labadani madaxweyne kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta fagaaraha daljirka Daahsoon oo maanta ballanto inay ka qabsamo banaabaxa iska caabin xooggan ay kala kulmeen ciidamada ilaalada gaarka madaxweynayaashii hore ayaa sabab u noqotay in muddo saacado ah Muqdisho xalay lagu dagaalamay. xaaladda Muqdisho weli way kacsan tahay waxaana la dareemayaa xiisado iyo colaado ka jirto marka loo eego marka aad dhex lugeynayso wadooyinka ugu waaweyn caasimada ciidamo fara badan oo ay leeyihiin midowga musharaxiinta aad ku arkayso xeendahabka garoonka diyaaradaha markaa gaarto magaalada inteeda kale waxaa ku arkaysa ciidamo badan oo ay leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya. laakiin wararkii ugu dambeeyay caawa waxay sheegeen xaaladdu magaalada Muqdisho ay tahay mid jawigeedu uu aad u xasiloon yahay. intaan eegin khudbadda ra-iisul wasaaraha oo shacabka la hadlay kana hadlay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay iyo hanjabaad culus u jeediyay mucaaradka laakiin imaamka beelaha Madulood ayaa xog culus bixiyay asagoo eedan culus u jeediyay Farmaajo. imaamka beelaha Madulood Imaam Maxamed Yuusuf oo ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka banaanbaxyada mucaaradka ay dhigayaan Muqdisho kaasoo lagu rasaasayay iyo mushkiladaha dhanka amniga ay ka dhacaya caasimada. imaamka ayaa ugu horeyntii sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen dejinta xiisada ka dhalatay banaanbaxa mucaaradka sheegay in horaantii toddobaadkan ay ku qabanayaan taalada daljirka Daahsoon. arrintaas uu sheegay in dowladda federaalka isku dayeen ayna kala hadleen ayna ka dhaadhicin waayeen sida uu sheegay imaamka beelaha Madulood. waxa uu sheegay inuu u tagay Farmaajo uu kala hadlay banaanbaxa mucaaradka inay qabsadaan iyaga oo u sheegay in wax walwala aysan ku haynin ama walwala aysan ku qaban oo dhibaato aysan ka imaanin laakiin waxa uu sheegay in madaxtooyadu ay ka dhaadhicin waayeen inay aqbalaan dalabka inay qabsadaan mucaaradka banaanbaxooda. imaamka waxa kale oo uu xusay in musharaxiinta qudhooda ay ballan qaadeen in banaanbax si nabad ay ku qabsan doonaan aysan shaqaaqa sameyn doonin laakiin waxa uu imaamku si cad u sheegay in wax walba dhacay mas'uuliyadooda uu qaadanayo madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Farmaajo. imaamku uu sheegay inuu ka biyadiiday hadaladii ay u jeediyeen iyo go'aankii ay u tageen markii xalay arrintan cirka isku shareertay. madaxweynaha waxa uu yiri waxa jira coronavirus waxaan soo geli karaa shabaab ma doonayno inaan banaanbax qabataan ayuu saacad ugu yiri. waxaan u sheegnay in anagaan xaqiijinay banaanbax uu noqon doono mid nabad ah mas'uuliyadeedna aan qaadan doono maadaama aanan hogaankii beelaha Madulood. madaxweynuhu waa nagu dhaga adeegay mana naga aqbalin dalabkeena xitaa uu nagu tixgelin waayay ayuu yiri imaamka beelaha Madulood. sidoo kale waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu oo asna ay la hadleen hase yeeshee ra-iisul wasaaruhu uu ogolaa in banaanbaxa ay qabsadaan laakiin waxa uu sheegay in wax walba ay ka soco waayeen madaxweynaha iyo taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasin. imaamka ayaa xusay in dhinacyada ay la kulmeen ay ballan qaadeen in banaanbaxu si nabad ay u qabsan doonaan oo midowga musharaxiinta laakiin uu sheegay in madaxweynaha iyo taliyaha Fahad ay ka soco waayeen sida uu eedeynta u jeediyay.
haddaba daawadayaal ra-iisul wasaare Roble ayaa si la yaab leh kaga hadlay weerarkii dhacay dibadbaxyadii ay sameeyeen ra-iisul wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hadlay xiisada xoogan ee caawa ka jirta waa xiisadii maanta ka jirta magaalada Muqdisho ciidamada dowladda iyo weeraradii dhacay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sheegay in aad kaga xun yahay rabshadihii xalay ilaa maanta ka dhacay Muqdisho hase yeeshee wuxuu la yaab ku tilmaamay eedeyn la u jeediyay in dalka la yiraahdo dowladka ma jirto sidoo kale uu sheegay in marna dowladiisu aysan aqbali doonin in dalka dowlad ka jirta in la yiraahdo dalka dowlad kama jirto sidoo kale waxa uu yiri ma aqbalayno qalalaaso iyo fawdo magaaladani ka dhaca haddaba daawadayaal aan idin soo gudbiyo shirkii jaraa'idda ee ra-iisul wasaare Roble uu qabtay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan rabaa halkan inaan kala hadlo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho inaan aad iyo aad uga xumahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho 24 saac ee la soo dhaafay waxa ayaan darro ah in iyadoo lagu jiro sanadka 2021 oo qof sheegto inuu qabsaday magaalada Muqdisho una sheegay in aysan dawlad ka jirin waana arin aad iyo aad fool xumo ah iyadoo ay dalka ka jirto dawlad xor ah oo madax bannaan waxa kale oo ayaan darro ah in ciidamadii mas'uulka ka ahaa ciidamadii qaranka ee geesiyaasha ee u soo halgamay u dhimanayay Soomaaliya weerar lagu qaado oo la taageerayo una ka bilowdo falkaasi xalay dhacay meeshaas waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ilaaliyaan midnimadooda shacabka Muqdisho waxaan leeyahay waxa loo socdo waa hantidiinni waa naftiinni waa guryihiinni in lagu burburiyo waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin dadaalka iyo garashada aad muujiseen inaadan raalli ka ahayn inaad taageertaan wax kasta oo lagu carqaladeynayo midnimadiina maalkiina naftiina iyo xoolihiina waxaan leeyahay dawladda aan aniga mas'uulka ka ahay ee xukuumadda ah oo aan ra'iisul wasaaraha ka ahay diyaar ayaan u ahay sidaan horay idinkugu sheegay in aan la fariisto qof kasta oo cabasho sheeganaya haddii aan leeyahay mid doorasho mid amni iyo mid kaleba waxaan leeyahay qof kasta Soomaali ah xaq ayuu oo dastuuri ah ayuu u leeyahay inuu mudaaharaado laakiin waa inuu mudaaharaadkaasi noqdaa mudaaharaad nabadeed oo ay ilaalinayaan ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya raalli marnaba kama noqonay mudaaharaad la soo abaabulay oo ay horkacayaan ciidamo oo ka soo horjeeda ciidamadii dawladda waa arin fool xun inaan arintaas aqbalno dhamaanteen mudaaharaad hubaysan marnaba kagama jiro meel chapterka dawladnimadeena waxaan leeyahay walaalaha cabashada tabanayo hadday tahay doorasho waqtigeedu waa diyaar baydhaba ugu dambeysay oo aan guddi farsamo u diray oo 5 maamul goboleed gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe ay halka ku kulmeen 14 qofood waxa ay noo soo diyaariyeen heshiiskaas oo lagu heshiiyay in lagu saxiixdo madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda iyo gobolka Banaadirba magaalada Muqdisho taasoo soo afjari lahayd in ay doorashadu bilaabato waqtigeedana ku bilaabato ka ra'iisul wasaare ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa musharax ma ihi laakiin waxa iga go'an doorashadaas inay waqtigeeda ku dhacdo si xor iyo xalaal ah qofka shaki qabo ha ila soo xiriiro waxaan rabaa halkan inaan ka sheego 48 saacadood labadii maalmood ee la soo dhaafay inaan dadaalo fara badan aan geliyay sidii dhibkii dhacay foolxumadii dhacday aan u hakin lahaa shalay ugu dambeysay waxaan la kulmay duubabka magaaladan siyaasiyiinta waa la hadlay guddigaan u diray guryahoodii loogu tagay in laga baaqsado in ay xabad dhacdo waa nasiib darro in warkayga la tixgelin waayo waa nasiib darro in la diiday in la ila kulmo waa nasiib darro in gadaashayda dad ama qof kale laga raadiyo nabadda gacmaheena walaalayaal ku jirtaa waxaan aniga idin qaban waayna cid idin ma qabanayso diyaar ayaan u ahay inaan idin la hadlo inaan idin la fadhiisto cabashadiinana aan xalliyo walaalayaal soo dhawaada shacabka Soomaaliyeed shacabka Muqdisho ogaada waxa lagu gorgortamayo waa maskaxdiina waa madaxiina waa aqligiina
waa ciidankiina waa awooddiina waa hantidiina marnaba ha yeelina inay magaaladani naga dudunto. waad garanaysaan nabadda aan haysanno maanta, dowladnimada aan haysanno maanta, dhibka laga soo maray 30 sano ayay nagu qaadatay meesha aan maanta taagannahay inaan soo gaarno. ha ka yeelina, aniga ha iga yeelina, cid kalena ha ka yeelina inay idinka dudumiso. anigana diyaar uma ihi. soo dhowaada, waxaan leeyahay xasiloonida ha la muujiyo. soo dhowaada, waxaan leeyahay wada shaqaynta ha la muujiyo. soo dhowaada, ciidamadiina amniga la shaqeeya, garab istaaga. soo dhowaada, cadow ayaan leenahay gudo iyo dibad, ka hortaga. soo dhowaada walaalayaal siyaasiyiinta walaalahayga ah ee muqdisho joogo, diyaar ayaan idin ahay. waa ku celcelinaya hadalkaas, waxaan ugu celcelinaya wax kale maahane inaan diyaar idinla ahay, inaan idinla fadhiisto geed dheer iyo geed gaabanba, oo aan waxa aad tabanaysaan aan xaliyo. soo dhowaada, waa mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa xasiloonida ha la muujiyo. waxaan waa dalkeenni, waa magaaladeennii. soo dhowaada. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.